Asalaamu calaykum. Nin waayeel ah degnaa beer uu lahaa ayaa markuu waaberiga soo kaco meel dhaha ay ku akhrisan jiray quraanka subax kasta, wuxuuna dad kala joogay wiil uu awoow u yahay uu jeclaa sida awowgiisa inuu noqdo qof alle ka cabsi badan, diintana u yaqaan sida awowgiis. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu weydiiyey awowgiis, awoowe waxaan jeclahay inaan quraanka akhriyo maalin kasta sidaada oo kale, balse mar kastoon isku dayo inaan akhriyo ma fahmayo macnihii. Haddaan wax yar ka fahmo isla markiiba waan hilmaamaa, marka maxaa ka faa'iidaa akhrintiisa? Awowgii intuu silid ama dambiil dhuushay ku soo gadan jireen u dhiibay ayuu ku yidhi, dambiishan qaad, webiga intaad tagto biyo iigu soo qaad. Dabadeetana ininka inta isa sii daayay ayuu yeelay siduu awowgiis ka dalbaday, balse wax biyaha kuma jirin. Markii awowgiis u yimid asagoo dambiishii kor u sida ayuu yimid, wuxuu ku jiri awowgiis, awoowe biyaha ma elinayso dambiishu oo way ka daadanayaan. Awowgii oo dhoola caddaynaya, markayga biyaha markaad ku soo darto dambiisha soo orod si aad ila soo gaarto iyadoo biyuhu ku jiraan. Kadib wiilkii biyo ayuu mar kale ku soo qaaday, agaha ayuuna wax ka soo dayey si uu la soo gaaro biyaha ku jira dambiisha awowgiis, balse dambiisha oo maran ayuu mar kale awowgiis u keenay, waayo dambiisha biyaha way ka dusayaan oo biyo ma elin karto. Inankii intuu arooday ayuu awowgiis ku yidhi, awoowe sidaan suurtagal maaha oo dambiishan biyo ma elinayso, marka hadda ayaan weel qaadayaa oon biyo kugu keenaya. Awowihii maya, aniga dambiil ayaan ku yidhi, marka waxaan u malaynayaa inaadan muujinin dadaal dheeri ah, marka aan ku raacaya inakeen. Kadibna way israaceen ininka iyo awowihiis. Markii ay webiga jiinkiisa ama geeskiisa tageen ayuu wiilkii biyo ku soo daray dambiishii oo ku yidhi, awoowe aniga soo kuma dhihin dambiisha biyo way ka daadanayaan oo haba lagama faa'iido? Awowihii ayuu ku yidhi, kaale oo eeg dambiisha, ma waxay kula tahay inaadan waxba faa'iidin? Inankii markuu eegay wuxuu ogaaday in dambiishii uu dhuusha ku soo gadi jiray oo wasakh badneed hadda ay nadiif tahay. Awowihii oo hadalkiisa wata ayaa yidhi, qur-aanka markaad akhrinayso oo aad hilmaamayso intaad ka hifdisay ama macnihiisa aad aqoon, waa sidan oo kale ayaa humaanta iyo dembiyada nadiif ugu noqonaysaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada aad muuqaalkan daawateen. Fadlan subscribe noo saar.